السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير. مان أمد المسلمين تامل والباقي كجوك تدافع عالمك وحن عيد مبارك كلنا عيد في الترداء سنتك لبكون أفري طبعا وطبعا دنيا الإسلام كوي مانتا أدل بعد جيسو برامج كعيد سنة كان أما مانتا ومدحي سلا ومدحي سجار الفنانين الصومالي ده كوا وحي صعب دوا قعد كوا جوجا جيج الصومالي ده آيات ضباط كان برامج كمرتين نوجا طبعا وحنا نقدونا برامج أد كده حرق دونتان دوخينا dhinaca jacaylka wadaniyada calaaqalka iyo bado intaas mawjadahaas ayaan dabcan dabaalan doona hadii ay beerado waxaan jeclahay marka inaan soo dhaweeyo boqorka dhaantada luuqda iyo hee dhawaqa xabeebtala markuu jalqa siiya ay haweenkooda xadreeyaan boqorka Axmed Budul ayaan marka hore jeclahay inaan soo dhaweeyo sacab maraha lagu soo dhaweeyo Axmed ha waa kan waxaad reynaa markan Budul waa yimiday waxaan ka yaabin taagida انت انك بدن بان كو هينا مانتا اي امانتا ولبا تاغيرياشا اي ورقه بخبر دحيتا شاف حتى لا سو جيد حقاق اصحابته داونيسا اما طبعا داودياشا ku xiran barnaamijka waxa kale oo maanta idin qariyay fanaanad aad u weyn fanaaniintii طبعا جيجا Soomaalida caanka kamid ah oo طبعا heesayga jacaylka badooyinta طبعا in badan oo idinkeeda kamid ah طبعا aad ku madadaashaan وطبعا أد وقت بدن كقاطان يعني تعالى هنا سود ويو وأنا قبل كم مرتيا طبعا أما شوكتو أو صوب وقتي عاصمة دا أما ديجان كصومالي دا أمنا شامع أمنا فريك أيان سود وينا مركم صعب مرة لقو سود ويو سودو أيالين هاي أمنا عمامة دي أيان دعم ما لورن ترى عمامة دي سلام عليكم كرا لورن ترى سوما سودو أمنا هياك صاحب يال مرتدي وين سو غادhay waanu soo dhaweynay dabcan waxa kale oo xusud mudan in barnaamijka toddobaadkan daawadayaal ka qayb galay barnaamijka ay fadhiyaan kuwaasi oo dabcan xiisa gaar barnaamijka u yeeli doono buduliyo dabcan Amina Afrikna halkan ku sugayo oo dabcan asxaabtaas iyo kuwa kale oo shaashadan kala socdaba waxay maanta sugayaan in dooqooga aad halkan aad ka saartaan إن شاء الله حرشينا طبعا دوخوغا سار دونتان waxaan jeclahay marka hore inaan soo dhaweeyo martida koowaad ee barnaamijka Amina Jaamac Amina Afrik waxaan la soo dhaw barnaamijka marka hore waan dhawahay walaalo Amina dabcan deegaanka ama caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida ay maanta sanadkan ama bisha barakeysan ee Ramadaan la joogtay dabcan sidaan filayna waa markii ugu horeysay ay dabcan jijiga imato bal ka waran jawiga jigjiga iyo maatikaaga jawiga ma sha Allah waan ku faraxsanahay waa jawi wanaagsan jigjiga iyo dhamaan Ethiopia oo dhanba maadaama maanta igu cusub tahay jawiga aad baan ula raaxsanahay safar aad u fogo dabcan kilomitir aad u soo socoto kumanaan kilomitir ayaad soo gashay bal ka waran jigjiga markaad imatay seed u aragtay yani markii aad ka maqnayd meelaha kala joogtay hadda jigjiga يعني جيجيجا ما أنت ويقول حسبتها ولا جمال أركن قارهان إثيوبيا ودن بمال أركن هرتا إثيوبيا ودن إثيوبيا سودان تمال أركن ما تسوي حاجة بحجر المال مركز قارهان جيجيجا إذا مختيجا بدن نكو قاتي ما أنت أم بلدن شوقي أدبر نقول فرحسن هاي دتكيجا يا مذحضة دمان وحن سلام يا مركوري سلام سما بلا ما كرو ومدني وحن سلام يا مدحوينها مصطفى محمد عمر يوحنا سلام يا مدن إبراهيم عثمان أدبر سلام يا شعب كريجي كنا أدبر سلام يا شعب كريجي يديان كسومالي ما حد كلا يجا شعب كريجي يديان كسومالي جودهان أمن أفريقيا بديان كي تشوك تمر كلا يرادو دكتي تاجي أنا طلعوا محي سؤال بيسويدينه سعودال كاغم حقوق قدامية والله سعودال كاغم مركي هوري dalxiisi iyo inaan dadkaygaan soo barto Ethiopia degan markaas laakiin markaan ka soo degay Diradhabe jigjiga aan imiday aniga baawran ku soo galay jigjiga markaan jigjiga imiday maalin wanaagsan baan imiday oo la tukanayo oo Ilaahay rabdoonka la baryayo runtii aan ka soo degay jacayl rabdoonta baalka budule marka aniga waxaan go'aansaday
maadaama meesha abaara ka jirto deegaanka inaan kala qayb qaato codkayga aan ugu deeqo show aan u qabto dadkayga abaaraysan inaan qayb kala qaato dabcan waa show dabcan dakhliga iyo dhaqaalaha ka soo xiroodo lagu taageeri doono bulshada abaartu saameysay caawa oo dabcan ku beegan hameenka ciidda dabcan ayuu barnaamijkaasi ka qabsoomi doona hoolka sayidka معشقين تدين سوغانتا طبعا انت بش بركيسنت aad baa dhinaca heesaha wax walba waa laga soo maray waa laga soo maray anta waxaan jeclahay in habeenkaas halkaas fanaaniin deegaanka kuwa ugu waaweyn baa dabcan marti ku ah iyaguna way ka qayb galan waxaan rajeynayaa inaad soo xaadirtaan showgaas iyo balsi guud bal showga iyo qaabku dhici doono insha Allah wuxuu ku dhici doonaa sayidka hoolka weyn sayidka waxaan ugu baaqayaa shacabka deegaankana inay nagala qayb qaataan iyaga laftigooda iyagoo ciidna lala qaadanayo inay dadkooga tabaalaysan ay soo caawiyaan ay yimaadaan labada dhinacba farxadda jacaylka weyn la wada dhuuga waa taadada ma santa ku soo noqon doona heesaha caawa lama kala baxayo mawjada ayaan asxaabta gelin doona badooyin bay dabalan doonaan bal marka ninka boqorkii dhaantada ayaan jeclaa markaan soo dhaweey budlow saaxiib aad baad u mahadsan tahay horta waan kula joogaa وانا دوحي وانا سجل هذه هرتا وحان إله وما هاد نقيا بشي بركة سنة رمضان إن لو صو صومي نبض يعافمت إن مساجد لا العمري iyada oo aan face mask la xidhnayn oo dadka cudurkii corona virus ka ilaahay ka marka waxaan karaa waxyaabaha ciidan ay ciidihii sanadkii hore kaga duwan tahay ayaa kamid tahay caafimaadka sidoo kale in dalka guud colaado iyo dagaal ka jireen sanadkii hore sanadkana wada nabad yahay si guud alxamdulillah taa qudheedu waxa loogu maagay waxa la oran karaa uu kaga bedelayaan tahay ciidan ciidii hore waanan ku faraxsanahay caawa halkan inaan ku kulanno farxad ku wada qaadano ciid mubaarak kan nidhaahno ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii asxaabtii iyo qaraabada insha Allah maxaad leedahay asxaabta ku daawanaysa wana asxaabta horta waxaan leeyahay dheer iguma kordhino intii adigu ogeeyeen ma leeyahay arintii waxma dhaafin halka anigu horta intii ma dhaafin ma garanaysaa laakiin caawa waxa cusub aan idin wada bariga hore hablaha aad baan u amaani jiray ninba wax muddo jannada ku gelayaa baa leeyahay waxaan meenaa anu amaanta dumarku ku gelayo alaaba islaamiyo ninkan xaga jacaylka warmiyadu waalan tahay laba meel baa laga helo jacayla kowdhi marka hadii alla ku roon yahay bariga hore dumarka waxaan ku amaani jiray inta badan waxaan ahay suugaanyahanka dumarka ku amaana waxyaabaha dabiiciga dabcan waana waxyaabaha ugu muhiimsan dhan marka la eego ama midho qurux badan oo soo baxay ama kan laakiin sanadkan waxaan leeyahay dahab noolo socdiyo goobta riyadahay dahab noola oo socdiyo iyo goobta riyadahay daayin midu ka dhigay dabaqada saray tixda laabta iyo dejiyaha naftay ibnahaygana maanta deyn kareen marka waxaan leeyahay halka xagga dahabkan idin ka daraya dumaro yani xagga dahabka loo leeyahay xagga dahabka macdanaha la gelaya dhirtu way soo dhamaatay wax aad u muhiimsan oo waxa la isran karo waxa tabcan haweenka aad u jecel dahabka la yiraahdo dawladda soo gabigooduba si la guursada waxa tiraahdaa meherkaygu waa dahab marka inay ka abuuran yihiin ay halka ka garanaysa arag badan xagga dahabka cali baa jir Allah ma inta nin ooyisaadan arag hagaag caawa bartanka la isu fadhiyay fadhima jira caawa wax khayr ilaahay naga soo wadacaw bulshana daawanaysa wax khayr leeyahay naga heshaan rajeynaa insha Allah taala aad wad maasantiin dhamaan martida iyo waliba sidoo kale hawlwadeenada halka hoolkan igula sugan ama goobtan barnaamijku dabcan aan ku qabanayna nagula sugan aad baan ugu mahad celinaya shacabka iyo waliba sidoo kale kaameramanadena si toos ah barnaamijku wada gali doonaa madhaantidan aan ku horeyna waxay la qumanaysaa dadka in ciid mubaarak ku nidhahan dadka Soomaaliyeed صح meel kasta joogan shanta Soomaaliyeed dibad iyo gud afarta xaafadood iyo localka waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-ahmar ciid mubaarak meel kasta joogtaan inta madaxda inta dhexe inta dhalinyarada inta waayeelka inta soo koraysa Soomaaliya say u dhantaa duubkeeda ciid wanaagsan baan leeyahay sanadkan sanadkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyay ciidan ciideedaba bashbash iyo barwaaqo ilaahay idinkiisa ciid mubaarak baan anaguna leenahay waxaan jeclahay marka inaan soo dhaweeyo tijigaadi matay shacab badan oo dabcan aan horay dabcan heesaha meelaha ka daawan jiray ama TV-da ka daawan jiray laga yaabaa in showgaaga ay soo camiri doonaan iman doonaan jijiga joogtaa marka leeyahay qaar badan baa dhagta soo taagay bal ciidda maxaad ugu tala gashay heesaha ciidda laba heesood baan ugu tala galay marka heesna waa jacayl
isna runtii labadaba waa jacayl xagga jacaylka aamina dhowr heesoodan kugu arkay heesa bilowgii heestii dabcan hees jacayl oo aad macaan baad mar qaaday kadibna adoo labaan ku arkay raaxayso wiilyaha oo waxdaa nin daal ka noolo un baan adoo daal samaynayo dabcan hay gudul reemina adoo labaan ku arkay dabcan hees kale oo saasa laba heesooda dabcan laba marxaladood oo bilowgii jacayl oo aamina waxa la lahaa xagga jacaylka muujadaas u janjeedha haddana xaggii dambe baad ka laado waxaa tiri waray gudul reemina niyo adoo labaan ku arkay bal ma dhinaca jacaylka dhinaca daadiska mid ku fiicanta adigu labadaba wallahi inkastoo daadiska ka jecelahay jacaylkan oo ku fiican intaba laakiin waxyaabaha isleedahay alla ilahay dadku way kala duwan yihiin oo budul oo kale markaad fiirisid isagu waa ka dahabadu galo xitaa dhinaca jacaylku badan yahay adiga hal meelood u badantaas leedahay alla ilahay warniyo aniga baddaasa laygu soo hagaagayaa oo hadday noqoto dhinaca jacaylka iyo meelka jacaylkan u badan laftigeyga xagga jacaylka hees daba oo qiso daba ama hees jacayl oo is leedahay warniyo aniga heestaas aad iga turjuntaa aad leedahay ma jirtaa oo dabcan aad mar walba adoo aad isweydiis amaad qaad may heesaa ladiiba ma qaada heesa abaan kuula yimaado baad qaadaa laga yaaba laakiin caawa midaan qaadayo mid aniga turjumaysa mid adiga ku qosaysa alla caawi taaganta mid marqaati ka caawa badayna la gelaya sheekada caawi taagantahay mid aniga qosaysa jirta asxaabta iyo waliba sidoo kale daawadayaashan waxaan dabcan heestaas qisada socota ee aamina qosaysa ayaan dabcan goordhow aan soo qaban doono heesta ugu horeysa ee barnaamijka aan ku daafuran doono ayaa noqon doonto hees jacayla dabcan fanaanadeena aamina ay noo qaadi doonto ayaan dabcan ku daafuran doonaa daawasho wanaagsan barnaamijka munaasabada ciidda aan ugu talagala ayaa daawanaysaan daawadayaal ciid mubaarak kullu macaan waantum bilkhayr adlan warwaray jacaylkeena iyo wadaajirkeena
عيانتا iyo iidawa wacdi kala daalo he waano kala quusto hees طبعا waxaan arkayno in xagga quraanka dadka warmiyaal waxa uu adag ba ka dhaxlay wacd kala quusto waana kala daalo balasta qisadeeda naga dabagee كل واحد قصة دبعة ويا هس لسكيس أيون عاومة طبعا عاو قصة وذاتا وحن جعلان لينا ذو حوجات شبك نوجش سودا ورو هيستاس إنه مستقبل كل يرادو قصة هيستاس الكاسي سلك كويسي أنت وحكي بدن معنا كمان سيسين كراي ما دام يتهاي هس قصة دبعة وأنا جهلس وحنبارسن وكل ما يسترمينه أنت أسكت أنت أنا مستري سامها رام شقة كلام بانت هذا بدله فرتا جدا هالكاس فرتا جدا وهؤلاء هذين يحبون منك كل ماني لكن يبغى اللي بريبه ما شاء الله كلها عشان أنت أصلا كنت دافنه هس شعيل وقصة ده وده وحن رجعنا وانا ده حلقة قاطع وانا ده اللي قاطع رجعنا بقول كده أنت أيان شعل مركنا سود ويو أحمد وسود ورت وكل شيء ودل شو يعني مسا محن تبقى قصي نابل هاي لكم من ذهب نور سود وين صح سود وين علمي جدنا كل يلا ولا تو سجانته يلا هذا صح قفك فنانك هيستمر قاض ومد وقارسيو ومد يلا نحرك كلا بحر يلا بحر ها وهالك بدنا نقولك كهبايي ماشي إربطك وباهني وحاس هرنا طبعا نو والله مرحلة دول بكل سجى هو مركب بقى أو كوها صح مركب حواليا قارسي ياشة وحلاقي بينا شرحات بدنبه لو قاسي باهني سجانت يلا معنيه ده وضعت مركب وحلاقي تهب نولا سعودان سود وين يعني طبعا أنت ناس تانو قد قلين هي سبب دانت بدن بعد قاعدة دانت واحد طبعا آد النور والبون أنت بدون دقيستو كم ده دانتوين كذا آد أنت بدن الله هذا الحيو قال يا إسلام باكي قيل ودانتي صول بانو فهمي وربها دانتداس بل نقدر روتينو دانتداس runtii wala wayna mawduucan caawa ay la qabsay ayna qayb ka ahay haddana hadii goobta la soo dhigay oo ay u baahatay in farta la yartaasi inagoon aad ugu sii guda dhacayn daantadaasi waa daanta cilmigeeda wadatay runtii gobolka Soola waa taariikhda geeska Afrika oo dhan hooyada meesha oo weeyaan xilligii la qaybsaday Afrika reer galbeedku qaybsadeen waa meeshii koobaad ee halgan xornimo doona oo gobonimo doona Afrikaba ka bilowday sidoo kale waa meeshii kaliya ragii gobonimada Soomaaliyeed u dagaalamayay iyagoo waran haysta nin qori haystay qoriga kaga furinaya waran ha daraawiirtu ma niman sahlan looma geli karo marka sababta dhadhanka gaarka ah dhaantada u siiyay waa buqcada lagu qaaday oo buqcada iska barakeysanahay taariikhda Soomaaliyeed qof leeyahay meel ka soo hanqal taagay marka laga yeeshan qariyo in halyeeyadii daraawiisha lagu hertiyo hooyadii geesida haybada la dhashay marka la yiraahdo qof kasto Soomaali uu soo sare joogto marka uu qaadanaya bal daantooyinkaaga ay qaadid daanta kugu saameyn badan adiga ma jirto asleeda wana heesta daantadaasi aad ba ii taabataa asleeda anigu kolka aan qaadayaba sakaraad ma la noqdaa masal لكن دانتا سليدا الله له دانتا ما قرأت إلهي وحي يقول درنا الميكروفون كهو قولي والله جاكباو أنت بدنا تعال يا ودني بوا وانقذ لكن تعال كابنا وايو نلشه بنادنك وحن معناها ويا لا تعال هي معانك ويا وحويانا marka nabad iyo colaadu si isaga soo horjeedaan ayaa jacaylkeena ay kuna isaga soo horjeedaan marka mar walba waxa la xoojiyaa nabad iyo jacaylka sida awgeed suugaanteedu waxay u badan tahay xagga jacaylka bal waa tahay dhaantadaas aan soo qabanno dabcan anagoo daawadayaashana fursad siin doono hadda toole barnaamijka ka qayb galayo aan fursad gaaban siin doono bal waxaan jeclahay markan dhexda dhaantada dhexda laga jabiyo qoorta la jabiyo luqunta la jabiyo heesta dhaantadaas ayaan jeclahay boqorkii dhaantada axmudul inaan soo dhaweeyo
نحدي باتي شيء نفتبيل جعل طاقد كالا بحضو ديدي جيف كيفان دعوادو جيران كل حاجاني وضع وبدوين تفيري هاتو طوفان كوكاحو نحدي باتي شيء نفتبيل جعل طاقد كالا بحضو ديدي جيف كيفان دعوادو جيران حبنولو صعوديو كبتو رياضة هي داين ميدو كديجي تبقى سراي تحذى لابتا إيو تجيا يا نفتاي دبنا إيغان أمان تددين كريم حبنولو صعوديو كبتو رياضة هي داين ميدو كديجي تبقى سراي تحذى لابتا إيو تجيا يا نفتاي دبنا إيغان أمان تددين كريم برتقان تمحيد وخراحي أنطاني ليقى دباليدي نفقو دهورتو تذكا كاحيتا دون حريراي كعمها نرسم بلاب كتيري برتقان تمحيد وخراحي أنطاني ليقى دباليدي نفقو دهورتو تذكا كاحيتا دون حريراي كعمها نرسم بلاب كتيري beertu meelay hesho dadka marisayo sida doog cusub uun la baaqin weli nafku dahaawaton marna kaa durkayn neefka deega iyo darayada ka dhow beertu meelay hesho dadka marisayo sida doog cusub uun la baaqin weli nafku dahaawaton marna kaa durkayn neefka deega iyo darayada ka dhow حبنولو صعوديو كبتو رياضة هي داين ميدو كديجي تبقى سراي تحذى لابتا إيو تجيا يا نفتاي دبنا إيغان أمان تددين كريم حبنولو صعوديو كبتو رياضة
maanta ciyaanta iyo iidawa haye dahab noola socdo warso ma socdo dahab meelahan armad ku argiisa warta dumarku dahabka ma dhaxaan waxaan isla budul bilowgeeba wuxuu sheegay dadkan garanaynin inuu dahabka caasi oo maar u haysta dumarku waa dahab dumarku waa dahabkii oo socdo nool oo qofa waana bilowgeeba waxaan isla armad budul armu daadis meesha la yimaada dib iska hagaaji beelahay sata horta anigu waa isla joogaadii aad ma santa budul dabcan boqorka dhaantada dabcan budulo maanta waxaan jeclaan lahaa inaad wariye noqotaad wariye ha wariye inaad noqotid ma kii ka hadli jirtay fiida kii tifada ka hadli jiray saas u adag warkiina sii dayshid bilowgiisa ilaa barnaamijkiisa laga rabaa haye wal bilow hadda deeniyo horta waxa weeye horta soo hadal uma wax la sheegay isku toosan haduu doono qaafiyad biyo lahaan meesha doona ka baxa ha haddaan doonayo marka inaan wariye iska noqdo nimaka wariye u noqdo bal hadda waa wariye iska noqdo iska noqdo sababtoo ah haddii wax ka khaldamaana waa la cudurdaar doona imika iska noqdo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا نلا سعوتاي ميل كاستا oo aad naga dhageysanaysaan adduunka daafihiisa dalka gudihiisa iyo dibadiisa halkani waa meel aad garanaysaan oo warka laga soo tabiyo u diyaar garooba warkii saacada aad la socotaan ee intay tahay aad garanaysaan meel kasta oo ku sugan tihiin iyo goob kasta oo aad joogtaan saaxiibkay daahiro halka horteeda fadhiya ayaa waxay ugu yiri war akhri halkana waxay iga xigtaa walaashay amna afriik wariyaal badan baa iyaguna goobta ku sugan waxaan iyaguna sidoo kale meesha ka maqnayn gabdho qaali oo aad u qurux badan oo midba meel ka soo jeedo iyagana aan leeyahay aad baad mahadsantiin maadaama aad ka soo qayb gasheen barnaamijkan ciid wanaagsan warkuba intaas ku dhan yahay nabadgelyo warkii oo dhamay mustafa wallahi warkii madaxdiisii la mijiisi ama barka furna maqli jirta warasku furana dabcan waa warkii oo dhameystiran waxaan jeclahay marka inaan daawadayaasha fursad siino qaasaan daawadayaasha ka soo qayb galay barnaamijka labada koob waxba ku jira daawadayaashaas mid kamida koobka dhinaca waa Aamina koobkana waa dabcan waxma budul waxaan jeclahay mid kamida daawadayaasha ka qayb galaasha inay soo qaadaan kadibna ay su'aashaas halka ku jirta ay weydiiyaan ama waxa ku qoran halka akhriyaan بسم الله مركور السلام عليكم كسر جيجان كلها ولا شيء من أفريقيا وحن كلها عيد مبارك دمان ومد الصوماليين وحن لها عيد مبارك سؤال بالقرآن كويتينا سؤال شو وحن كلها هاي إن أذهس قرامي قادو يا إن أذهس جعيل هس جعيل أو خضر داهر ملكيت كلا دوران لهيدين قادو waxaan codsan lahaa wax yar ka mid inaad ii qaado khadradda reeseed heeska madowliba hees jacayla raggankan ka eegto waxaa tahay aroor hore qorax soo baxaysiyo 14 ilayskaya nuurkood waxaad aynigaagiyo asalkaba dheertahay edabtiyo xishoodko naftu ku ogolaatee soo adagadaymada indhuu markaan adiku eegaan naxariis looyaan farxadu ma ilmeeya sida koobabka loo kooreynayaa war ma garat بسم الله دماد مدة إسلام كمل ولا يجوعان بحال عيد مبارك سؤال شو حلو يدينا يا وأحمد
waxa lagu yiri goormay dhacdaa inuu qofku 4 jeer taxiyaadsado waa tee salaadaas salaad baa la tukaday yaa goormay dhacdaa baa lagu yiri qofku inuu 4 jeer taxiyaadsado waana tee salaadaas ma salaad wada atixiyada 4 jeer taxiyaadsado salaada 4 taxiyada ma waana tee salaadaasi horta waa su'aal diiniya وانا سؤال وناكسن وحقا هدان فكرون مودي سلام التحيات كل بلابطو التحيات كل ما تين جرتوان هرتوان سواي تاسد مويسنا لكن ان هديات مثلا يدو التحيات كي دخ لو فديا ادلا لا حدتو oo labada atixiyad ee jamca ka horeeyay aad atixiyadto tan salaada marka dhameystira salawada atixiyada dambe wad gelaysaa marka afartii atixiyadaasi kugu soo gelaya waa salaadii marka salaadaasi salaadii doonto baa noqoto waa salaad salaada maghrib weey salaada maghrib dabcan su'aasha sideedu galtay u gartay معنا سرتو ما واحد تلم يكون لي حين يايو شكل كونك سا ولا اتياد في وابك شو سلاد مغرب يتام فيليا هذا انا خلدناين واضح سؤال سيده ugu jawaabto bulow inkastoo diishka in badan wareejisay la yaabaan leh meeshan meel salaadeed hayn meeshan waxa ka starag la slayd ma tan xisaab ma meesha taagay waata qaybta daawadayaasha intaas aan ku akinayna kaalmaha heesaan u noqon doonaa fanaanada codka dabacsan codka jalaqsan le amina ayaan markan jecelahay soo dhaweey sayid maxamed waye markii kala amino fanka muddo badan baad ku jirtaa heeso badan oo nooc walba la waad soo qaaday muddo intee leeg baad leedahay fanka arnigu waan kusii jirayaa ama waan kusii kasii wadanayaa mise la sax ku qorshaysan baan gabahaan baad fanka ka baxday way qorshaysan tahay insha Allah tii Allahna waa gooni laakiin way qorshaysan tahay insha Allah waata bal heesta xigta heesta xigteed inoo soo qabanaysa wadani hees wadani inta ka horeysa ma codkaaga may toos ma inoogu luqayn sama hagaag markan daawadayaal waxaan jeclahay markan in heestaa soo qabano hees wadani dabcan aamina maadaama deegaanka Soomaalida ay soo buuqatay dabcan gobol walba waxaan heeso dabcan hees aad deegaanka Soomaalida u amaanayso waxaan jeclahay qof walba gobolka uu joogo ama meesha uu joogo markay heestaa marayso fadhiga ka kaca Son de wabi shabele
hagaag daawadayaal qabiil yaan qaran la dhaafsan dabcan hees wadaniya dabcan oo dhanna waana dhanna wax qabad ka turjumaysa ay ahayd dabcan waa hees ugu tala gashay deegaanka maadaama ay aamina ay deegaanka imatay aamino dabcan hees wadaniya jacayl calaacal markaad qaadaysid si guud dareenka yani falcelintaad samaynaysid ama qiiradaad samaynaysid waa isku mid bal ka waran intaas siiba markaan heesaha wadaniga qaadayo inaan bulshadaan u heesay soo ma inaan bulshada wax fahansiyaan isku dayaa marka jacaylkana dee qaybta jacaylka baan uga heesa markaas jacaylka hadhow xamad le inta badan dadka jacaylku waa loo wada nugul qalbiyada iska furan waa bulshada laakiin heeska wadaniga waa muhiim dhagaha la ruuxaa laakiin wadaniga waa dadka gelisaan waa كل وضني واكد وين هاي جعل كو فعل طبعا balka qaarkoodna gelin wax fahansin waxyaabo fara badan buu wataa marka waana kol farta gilgisho alaabta marka wax waliba de markaad masax taagan tahay wuxuu ka turjumayo waa inaad action ku muujisaa fanaaniinta ama dadka qaar waxay yiraahdeen fanaaniin fankiina heesiina ku jiro oo stage-ka markay gaaraan xitaa aan ficil samayn karin baa jiro oo aan wixii xitaa u qaadayay waa wax ilaahay qofka u dhaliyaba waa jilido iyo luuqdu mid walba waa hayday qofna ilaahay uu isugu daraya qofna luuqda kaliya la siinaya wuxuu ilaahay ka reebaya jilidii marka inaa taagna cid maxaan baa saaciyay marka way dhacdaa amina fanka intaad soo galin bal ka waran khaasatan hablaha waxaan ka warqabnaa fanka intay soo galin meelaha jikada iyo meelahaasay ku heesaan oo fagaara noocaas fan ka soo bilaabaan oo xaafadda ka soo dhaxaysaan bal waqtigii bilowga fanka saxada fankaad soo galin fanaaniinta geyga Soomaalida fanaaniinta Soomaalida oo kale yaad xiisayn jirtay yaad ku dayn jirtay heesaad qaadi jirtay ma xasuutaa ka hor intaad fankaad soo galin waxaan qaadi jiray Allah naxariistay Faad Axmed Dabil Allah naxariistay ilaa naxariistay jannada iyadan qaadi jiray waana fanaaniintan ugu jeclaa iyadana dad igu dhaweeyay waxaan ku soconaynaa budul dadku inta badan waxay yiraahdeen ama daantada iyo heesu way kala duwan yihiin arinta ma jirtaa waxa kala duwan yihiin hal mid qaabka rhythmku u dhacayo midna dhaqan yahay midna hees yahay casri wada dhaqankuna waa wax soo jireenaho dadku iyaga oo aan fankan casriga abad haysanin lagu ciyaari jiray oo ciyaar dhaqameed baa la yiraahdaa waxna waa wax la casriyeeyay oo u tuman ama jaanteedu u dhacayso si ka duwan sida ciyaar dhaqameedka intaan ba kala duwan laakiin erey ahaan marka la curinayana waa isku mid marka la qaadayana waa isku mid laakiin dhinaca jacaylka qof markuu dhinaca jacaylka u qaadanayo wayarta in dhaanto jacaylo dabcan oo kale oo qaato waxa jacayl darteed u dhageysto labada mid ka badan tahay dhinaca horta xilli aan heesiba jirin oo dhaanto un jacayl loo dhageysan jiray baa jirtay oo aan music ba jirin oo dawaa laga soo gudbay marxaladda markii laga yimid hees baa loo yimid heesta waa caan baxday meel kasta adduunka hees baa caan ka noqotay sida awgeed baa ay inta badan xilligii masalan dadka Soomaalida heesaha ugu badan ee la falgalay waa xilligii Soomaaliya ay ka hana qaaday dawladda kacab kadib haddana Djibouti ayaa la isugu wadatay heesi markaa de caadiga ahaa casriga ahaa jacaylka ka waramayay abwaaniintu si xeel dheer ay uga warameen fanaaniintuna si qeyralo cajiib ayay u soo qaadeen dadka qaar baan seexan jirin bay la loo qaado ma garanaysaa nin kasta oo ama fan ku jira ama aan ku jirin ama fan ku jira ama ku jirin xaaladda markay ku ciirto iskaga tuuran jiray u dhageysan jiray ha laakiin imika tobanayadii sano u dambeysay bay dhaantadu وهاي هاي وحنا قاعد ساحة مسرح ويكون عصب تاعي سيدا أوجد بيد وكلا سامين بديه ولو أنت يريد ده محاها لا يبي ده أنت الموسيقى له ميديا هنا الله هلا وحقا أي كورك عليه سامين بدنا يرتي هذانا ده وحكا سامين بدنا هسي صوت سريع أفرت سريع اللي يجي سني هكذا حكى له بدروي طبعا ده أنتو
marka qaarkood waxaad moodaa in xoogaani ka duwanto xitaa silsilada yeelatay suugaanta dhan waa loo samayn karaa waxay ku xidhan tahay hal abuurka suugaanyahankay ku xidhan tahay inuu silsilada masalan silsiladan waxay ku qurux badan tahay inay wax dareen ku yimid ahaato ee aanay ahaanin wax inta laga wada hadla la yidhaahdo tanaan samaynaya adna taa soo samee saasaan u hadlaya adna saa u soo hadal kuma qurux badna waxay ku fiican tahay inay dareen ku bilaabato suugaantu waxay noqon kartaa ama dhaanto ama ismid doonta noqotee ama gabayba silsilad wadaniya noqon karta silsilad kicina oo umada lagu kicin noqon karta halka ayaa calay silsilad jacayl laga wada hadlayo noqon karta wajiga badan bay yeelan karta marka suugaanta wax aan silsilad ama taxana yeelan karin ma jiro ee waxay ku xidhan tahay uun kolba sida loo sameeyo iyo sida dareen wax ugu yimaadaan ay ku xidhan tahay marka suugaantu isu wada geeyo ama gabay ha noqoto ama geeraha ha noqoto ama hees ha noqoto ama dhaanta ha noqoto ereyada la sameynaya waa xigmad suugaaneedu laakiin waxa kala duwan qaabka muusiga loo tumayo iyo qaabka ciyaartii loo dheelayo ayuun ba kala duwan intaas ma kala waata Axmed marka aad ku soo noqono muddo badan baad ku jirtaa sab dhaanta badan baad qaaday bal dhaantadii kuugu horeysay bal intaan dib u noqono sanada dib u bood bal tii kuugu horeysay taa miisaaniyada ay noqonayaan dafta bal tii kuugu horeysay dabcan codkaa waliba inaad nagu maqashid baan jeclaa anagoo dabcan aan saari waxay ahayd horta dhaanto degmooyinkii 15 ahaa xilligii muxuu ahaa dawladda hore ayaa degmo kamid ah ahayd dhaantadii ursi aanu qaado waxa la oran jiray degmada Daroor dhulka dooga badan aynu soo daawano aan dalxiisna Daroor kale wada degnay kuma macnaheedu codkaaga dadku qaadi lahayd ka war dhulka dooga badan aynu soo daawano aan dalxiisna Daroor kale wada degnay saasay iyo runtii laxankeedu ahaa waa dhaantadii horeysay masrax bal la soo istaago laakiin waxaan ka fogeyn dhaantooyinkii jacaylka ay ku xigayo jacaylku iska saameyn badan yahay sidiisaba dadka meel baa laga wada haya yaa ku laba dhunkada iyo bogayga ku tabi waxba ku xig kuwa salkay marka dhaantadii markaas muujada gashay ha xisaabta qalbiyada akabaabgooda ayaa la xig marka dhaantadii goobsi taada runtii bal hadda maxaan ka soo qabanaa waxay la quman imka waxa filayaa inay inagu xigto barnaamijku sidii uu loogu socday dhaanto gabadh muuna la yiraahdo aan ku maamusay oo Soomaaliyeed muuna quruxsanay maan qaboojiyay marnin kula kulmaa dhaxa ku mashquul dhaantada inta badan qaadid hablaha Soomaaliyeed magacooda ku badan yihiin kuwa dalabaada maalin walba waxa daalac haysta kuwa aan dhaanta u qaaday laanu dadkii magacyadii baa badan erigii hore waxa la arki jiray 10 hablood wada socdo shan isku magac tahay wada xaliima ee la arki jiray imika mid walba hooyadii iyadoo shilin daawanayso bixisay mid la magaciiba ma jirto suugaanta bajax kaga ma dhacayso laakiin raga dhaanta ma loo qaadi karaa wado hadduu ninku aroos yahay sigay gabdhiisa loo daamaan kara laakiin keligii yahayna gabadh baa u qaadasatay كل أمانته كبرهم بيكون فيها هو ناقصين تاج فرس يجيل يقبلون بلا أمان شيء هي طولك هو طريق أسير رجو فانك أمانتك ما شاء الله رجو ما شاء الله يتقابل يميل هذا قال يسكون يكون في عين إن لا ترى سبن كمان حول يا يكون عينه لكن دمركو يا محو هاي فردها أمانتك وكسر بحال يقول كأنه إلهي ها متى كلمة اسم أمانتها وقبضتها أمانتها كونه وشينا وشيء لقون نبأ يبهش لقون دتشني شينا وشيء إسقال طبعا كده شو طبعا ما كان بقونه أمانة دمر كيو يمحو هاي وطن كدول كيو حقلياش أمانته وي مركا أنت بدن تعسى كلفته إن الله أمانه مدة كله دمر كوي حشودان وحشود بدنيهين وحن إنك وحنا رقم ما كم بغنين إتبان رقم كيبا كتير أو مثلا إننا هذا نيجي على طول بيجور ما بين شيء ورنشرين بوان تعال هاي وحاس لكن عند مالها كبر ورنشرتي الجبر أمان شرتي رقم بيحي مركز سبب تفرق كنيسة دقن كقيب كا لكن كي يحشوت في أسلوب وقيف. هي بل نوع بقدر أنت ضحكت.
جاي منكم ميري عسدا أحكوكم مشكور ونقروح سري من قبوتياي منكم ميري عسدا أحكوكم مشكور شماي سودابا مرين بيدم كاجي إندوه موناي إندوه كمورا قونيا بيدم شماي سودابا مرين بيدم كاجي إندوه موناي إندوه كمورا قونيا mahadiya ukumahadiya marnin kola kulma ukumahadiya shohod mugwayn lagu mamusayay mahadiya ukumahadiya marnin kola kulma ukumahadiya حشود ربي كوبو مرين وانت تومار كنول متكوادا مداي بيري يا حشود ربي كوبو مرين شرف لوي سمي سامري مرواني ما دوتاهي نسبوهم ملكي شرف لوي سمي سامري مرواني ما دوتاهي نسبوهم ملكي shohod mugwayn lagu mamusayay mahadiya ukumahadiya marnin kola kulma ukumahadiya shohod mugwayn lagu mamusayay mahadiya ukumahadiya marnin kola kulma ukumahadiya shohod mugwayn lagu mamusayay mahadiya ukumahadiya marnin kola kulma ukumahadiya alla maanta ciyaanta iyo iida wanaagsan alla maanta ciyaanta annagana mawjado iyo badweyne gelisa ay ahayd waxaan filayaa asxaabtaasi iyo weliba sidoo kale gabadha magacaas wadata jannadeedu farma qodna axmedow hablo badan waxay leeyihiin magacaas waa soo socdaa magaceeda weli
saad der sheegtay maalin walba kiiskaas uu taagan yahay ilaan magac ma dhamaado ya hawshu way socotaa laakiin taagan uu dadaalayna waa sax waxaan jeclahay markan dhinaca asxaabta inaan ku noqoto daawadayaasha su'aalo iyo waliba sidoo kale waxoogaa kaftan baa halkaa ku jiro inaan soo dhaweyn aan jeclahay markan بسم الله أولا السلام عليكم مقعي وسهام waxaan deganahay xaafadda Laytoonaad waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo barnaamijka quruxda badan ee loogu talagalay ciida ay daadihinayaan fanaaniinta qaaliga ah Aamin Afrika iyo Axmed Budul waxaan ilaahay dhamaantiin ummadda Nabi Maxamed iyo Soomaali bulshooyin meel walba joogaan ciid mubaarak haddii aan su'aasha u guda galo Aamina ayaan weydiiyay iyo ku socotaa waxay oranaysaa su'aashani heesaha calaacalka iyo kuwa daadiska ah midkeed ku nafistaa Sayid Maxamed calaacalka ku nafistaa أنا لفتر كي بفكر كمان قبايا ساعة على كان أذي شعلها بسم الله هلكم حكى سلام يا دمان ومدى إسلام كامل البيت شو حالي هاي عيد ونكسون كل عام وأنتم بخير وحن هلكم سلام وقدر يا برنامج كان الفنانين برنامج كوكع الزمن من أفريقيا أبوان كويناي ديانك أحمد بدر Aamin Afrika waxa la ku soo dhawow deegaanka Soomaalida oo deegaankaagii magaalada Jigjiga haddaan u sii galo su'aasha aan weydiinaya abwaanka waxa weeyaan noolaha dhalana ilmana aan foolinin ukuna aan dhalin shag magaciisa abwaan ma waxa wada dhalay noolaha aan dhalin ilmana aan foolin ilmana aan foolin ukuna aan foolin waxaan dhalin ma fooshay ukuna aan dhalin foolin mitir noolaha aan dhalin adigu ala kulli xaal gabigiisuba lagu laxaad ilaahay amin ukuna aan dhalin noola wax bilaadan aan dhalin ukuna aan dhalin magaciisa sheeg noolaha aan dhalin ma xoolaha ba mise waa noolaha su'aashu waxay tahay noolaha dhala ilmana aan foolan ukuna aan dhalin magaciisa sheeg ciidaasuba ka badan yahay kaas wana sheegay daba mid uu lagu koobi karaa ma intuu lagu dhalaa mana foosho ilmana ma dhalo xayawaan badan oo waxa jira aan muxuu ahaayay aan ilmo dhalin laakiin muxuu ahaayay taran leh ayaa jira waa shinidoo kale durdahoo kale carooga bahalka la yidhahdo kale wuu dhalayaa haddana ilmo u dhalay oo banaanka socday maarkiisa haddii ay su-aashu wax kaloo xayawaanka ka mid a daaran tahay waa meesheeda laakiin inta saddexaasaan garanaya Aad ka jawaab waxaad ka jawaabta su-aasha shinida ama durdaha ama carooga saddexdaasi waa noolaha aan dhalin noolaha waa noolaha dhala ilmana aan dhalin haddana ukuna foolan ukuna ka daaba hadalkeeda hadda waxaas muxuu yahay markaa maxaad u aragtay shinida inuu yahay jawaabtaas budul uu garab maray maxaan ku ganaxnaa maxaan ku ya maxaan ku qidaa maxaan ganax uga dhignaa dhaanto jawaabtaasi horta dhinac marka la eego waa ragga weeyaan ma isagaa dhala markaa isagu ma dhalo soo ma raggu ma dhalo isagu mana foosho kuna ma dhalo marka maxaan ku ganaxnaa budul idinkaan fursadana siinaynaa dhaantadii sool codkaaga weliba jalaqsa in xabiibtan waxaasan jeclay maanta inaan nuugnaay nin la ganaxay baa cod jalaqsan keeni haye budulow
هل يدي دراويش لقو هرتيو هو يدي كيسي يدي بتالي درشاي الجماعة نهيو سولي هدا سولي سولي هدا سولي هل أبوه رقبيا ولا قهاري انت أسئلة دايرة بوين كبرون طيب waa tahay budul markan waa ka baxsaday jawaabtiin kastoo baal mara haddana hees waxaan yaacaya in inagu dhaleen baro haystaa aadana arage waa tahay aaminaan kusoo noqonaynaa aamina mar kale ciid mubaarak baan ku leenahay heesa badan baad inoo qaaday laba heesood weliba cusub waxaan jeclahay markan su-aal inaan ku weydiiyo heesahaagu kuwii dambe u badan yihiin mas leedahay iyagoo qaraami ama qaaciya heesa badweyntaas heesihii hore gal oo dabcan oo qaabkii hore yani dabcan qaraami ama kaban iyagoo qaad mise heesahan dambe muusigan dambe ayaad rabtaa inaad sii wadatid musiigan dambe ma sii wadana dhinaca qaraami isa isku tiin wallahi waan isku fiicanahay laakiin weligay ma qaadin weli isuma dayin hal abuur ma wax ma samayso weli heese iyo laxan wax ma isku dayday weli waan isku day why not heesana waan sameeyey laxanna waan sameeyey ma sha Allah ay okay heeso dabcan laba heesood oo aad dadku inta badan ay jecel yihiin baa jiro jeclaan lahayn haddii codkaaga haddii xitaa heestaan daawadayaashaan u saari weyno in codkaaga waxoogaa aan aad aan dabcan aan daawadayaasha u saarno laba heesood oo kala jeedo oo mid jacaylta midna daadis ay tahay waxaan jeclahay bal marka hore anagoo saari doon heesta haddaan ku arki waayana istareexi maayo abidka ha iga tegin iyo heestii kale daadiska ahayd labadaas heesood aan jeclahay inaad waxoogaa codkaaga na maqashiis haye heeska daadiska soo ma ya anagaan ugu daadan laakiin adoo rafaadin igu dureemin rarkan ku haysta kama ridaye haygu dureemin raxaysa wiiliyaho mina raxaysa wiiliyo dhawaqaysa waxaan ka qaybgalayaashaan maqlayaa dabcan heestii daadiska aad baad moodeen daawadayaashaas waxaad moodaa hablahaas in xagga daadiska u badan yihiin laga haysto inkastoo qaar dhinaca calacalkay taageeray jireen waxaan jeclaan lahaa heestaa inaan gadaal ka saari doono heestaa dabcan waqtiga hadduu inoo saamaxo aan u saari doono waxaan jeclaan lahaa heesta kale inaan soo qabano markaan ku arki waayo marka heestii galgacaylka miyay dhamaata haradku miyuu idaaya miyaan ka hari karaya alla ya ciidag maya hadhina sii socon leena waxaan is iraahdaa mararka qaarkood warniyo gabadhanis maragga hindida gabadha jacaylka bartaa baan is iraahdaa markaad waxaan jeclahay heestaas inaan daawataan daawadayaal codka baxsan ee fanaanada amina jaamac amina afrik daawasho wanaagsan ciid mubaarak aan leenahay meel walba aad ka joogtaan daafaca caalamka daawasho wanaagsan
adigu joogtidumay ogoyibataa naftaydu laabtaydan ku helane hayinka ku abaad xabiibi wadaaho kaankaye kadow hagadaamadiyo wixii halis galinaye laabtaydan ku helane hayinka ku abaad xabiibi wadaaho kaankaye kadow hagadaamadiyo wixii halis galinaye heesiya bad malaa waxaan isir waa ku heshiinaha lagu amaani jiray waa tahay codka macaan ee heestaasi ee fanaanada Amina Afrique oo dabcan marti nooga barnaamijka munaasabada ciida Firdaan ugu talagala ayaa daawanaysan daawadil qaybihii dambe barnaamijka ayaan dabcan aan soo gaarnay Amina fanka hadaf intee leeg bad ka leedahay yani fanka inaad ka gaadhid meelaad hiigsanaysa sidaas leedahay alla ilaahay meeshaasaan gaarayaa oo markaan meeshaa ka gaadho asleeda ma jirtaa horta dadku waxbay ku tashadaan tii ilaahayna meesha way taala soo ma kulaan waxaan ku tala jiraaba inaan soo gaabiyo fankaad insha Allah sheekadiisa baad ka baxaysaa insha Allah ma lahay hadda laakiin insha Allah waa taladeeda marka laga tago fanka fanka si laftigiisu shaqeeyahay shaqo kale ka baxsan oo fanka ku dheerood qabata ma jiraa de shaqo la faygaan u shaqaysto weeyaan ma jirtaa كل جوري ما فديه قف كله هو شقة تجانا shaqada iyo fanka balka war sel la isku la jaan qaadi karaa marka qaadku culays ma keena
horta annaka waxaa noo dheer shaaqeeda nooma shaqeeyaan soo moogi qurbaha soo ma qurbaha shaaqeeda ma laha meesha waa lagu jiro ay annagoo gurigii usoo adeegayna ayaan guriga ka shaqeynaa haddana fankayga iyo shaqadeedii waan isku dhex wadnaa fankuna waxaa noo gaaraa de shaqadii noloshana waa tu gaara de fanku waa wax kolkol dee aad shaqadiisa gelayside mid joogtaa maaha soo maaha marka culays badan ma leh iyadoo dabcan culayska intaa leeg khaasatan haweenka uu saaran yahay xaggaas may culays badan ma dareemin waa okay bal nolosha qurbaha iyo bal Afrika ka waran wala Afrika raaxis kaga jiraan dadku ya dadka Afrika shaqeed baa u shaqeynaysa dib ma laba ay ma dareen lama geeyo raaxay ku jiraan dadka Afrika ku nool waa dad raaxa ku jira ma sha Allah dalkoogina ku nool dadka qurbaha jooga ma raaxa dib badan ba wadi badan tahay yes especially naga wadi waa ku dib badan tahay ninku dad soo shaqatiga hadda buu shaqeyniko naagta halka wayna shaqeyni gurigiina iyada ka shaqeynaysa shaqadeedii gaarkan oo dibadda u baxaysayna waa u gaar tii gurigana waa u gaar hay marka habla culays badan baa haystaas leh waata waxaan ku noqonaynaa daawadayaasha asxaabta dabcan martida toddobaadka barnaamijka qayb galayso ee qaybiyada dambe maadaama soo gaarnay نوصل بقاعدة سؤاله waxaan ku bilaabayaa magacayga Xamda waxaan halkan ciid mubaarak leeyahay dhammaan ummadda islaamka ciid mubaarak kula caam wa antum bikhair sidoo kale fanaaniinta martida ah ee qaaliga nagu ah Amina Afrika iyo Ahmed Budul Amina Afrika waan ku soo dhaweynaynaa marka hore marka labaad su'aal ayaa halkan ku taala waxayna ku leedahay inaad noo ciyaarto iyo inaad daawadayaasha sheeko gaaban uga sheekayso mid dooro ciyaarta sheeko maxay noo dheel ciyaarta ay fudud sheeko kinka keena sheeko maxay رجال هلايساد
wiilyaho haygu dureemina raxaysa wiilyaho adoon isfiiqin nala gubyoonin rugtana diidin adaasaba haygu dureemina raxaysa wiilyaho haygu dureemina raxaysa wiilyaho هرادين مانته راح يسوي اليوم هرادين مانته راح يسوي اليوم أضرب السيو نقول جوجا جالي كرورتو بحدا كوديدي هرادين مانته راح يسوي اليوم هرادين مانته راح يسوي اليوم رادي ليس ركف وقتادي دبر ليس ريح مالتا هذا رياضة راح يسوي لي يخو هيقوليونينا راح يسوي لي يخو الرجال ليس رادي ليس ركف وقتادي دبر ليس ريح مالتا هذا رياضة راح يسوي لي يخو هيقوليونينا راح يسوي لي يخو الرجال ليس رادي ليس ركف وقتادي دبر ليس ريح مالتا هذا رياضة راح يسوي لي يخو هيقوليونينا راح يسوي لي يخو maanta ciyaanta iyo iida wanaagis bismillaah mar kale ayaan ku soo laabtay su'aashani waxa aan weydiinayaa Axmed Budul waxayna oranaysaa ama ay dhahaysaa adoo tartan orod ah ku jira hadaad ka badiso ama aad ka hormarto kan kaalinta labaad ku jira adigu kaalintee ayaad noqonaysaa jawaabtana waan kaaga fadhinaa أنا أردية ولا أردية ولا ترتمية ككارين تلبات كتير هبان نافو وين بدي كارين تلبات كتير تبعي سلطان كانوا كارين تكوبات برايم وليستو أنا مقرنة زوان كذا كوبان نقولنا سوما والأرتوين اللي ما أردي لك واحد عم بدي صار سعاو كل اللي تأذي كأردي ما يلك بقى اللي يراها سام بنو بنتي يا مو قرتي صح waxaan ka hayr codsanaynaa qof walba taariikh nololeedkiisa waxba soo mara ama qiso ugu farxad badan ama uu la yaabo ama uu ku farxo ayaa jirta adiga qisadeedaad dhigi kartaa si qaas intay ku taabatay kula la yaabka badnad intii aad noolayd horta adduunyadu waa wada yaab yaabka adduunyada hadii la soo ururiyo inuu midib u weynaado ayaa laga yaabaa maalmaha kamid ah magaalooyinka kamid ah baan ka baxay maalin ciidaba tana magaalooyinka Soomaalida kamid ah baan ku soo dabeetana waxaan u imid meel aan magaalo daweyn tuulo daweyn oo cidla ah gaari yar oo ku dhacay gaariga gabdhaha wati marka gaarigu la dhacay gabdhii gaarigu la dhacay oo kooma ku wada jira oo mid hadlaysa lahayd markaan ay u darado waa wada gabdha yar yar gaarigu wuu baabay marka ana keligay baan ahaa
كل بعض يروح أنت واحد سروني أرمى لي هذا هدو يسقي ولا سعدينه شيل كم بحر سياري إلا قبل ما هذا يعني هذا أولا الله أنا وصاص وأنا وقول حي ما قرنا إذا تسميت بقى لكن واحد شرتي شاكك خلوا يقص بسي اللي جيد دولتي هون تي في جنا نشوفه SR تي في بواحد إن بدل اللي جت بينشري بيه واحد كستوب بيه واحد كستوب بيه Soomaalidu meel kasta joogto wadada jecel oo walaalaha marka siyaasadii xuduudaha yar waxa laga yimaado wadada jecel midna Djibouti baa show TV-ga SRTV mooyo wax kala daawan jiray wixii soo galaba biyahan wax ka qaban waa ko walogday akhwaaka dadkii biyo ka dhargii wuu daawadaa maalintii dambe ninkii saasaaba jigjiga yimid ma horta intuu imanin ba hadana TV-gii wax ka daawaday shidaalkii baan xarig ka jarnay inuu leeyahay waan ka wardoonayaa shidaalka isku shaqadi dawaa taamweyn wayna jigjiga tagaa dabeetana waxa ay dir dhabu yimid dir dhabu gaar ka soo raacay jigjiga markii uu soo galay ayuu arkay gaari dabeer wiil wado dabeetana uu darool gaari wadi arjoog yaa nin kana waraysanaya waa nin gaari dameer uu yimid wuxuu yiri arma baasin baa soo naafta yaa وقاسي نشيدي يا عمر بياد رفتي ور الله كان والحوجه ورنا بياه ولا صوره في شدال بلا مرا يا اخ بازين ما بس ما ادر وابي بروا تصيا و تصي او دي لا مeel kasta la gaarsi gaar dabar baa nool ee gurka inta ku jiran gaar xamar ma jireen anna naafta mooday wuri ya baasin iyo wax ninku wado shidal lagu wareejinay ninki magaalada sidoo kaga caroodo kaga noqday baa ay ka soo leeyahay fadli adigu kulaabka badnaad maqashay ha ninki gaar xamar kolka arkay ma baasin baa soo naafta isu guraadar ma foostan ku shuba kan biyo wata ninki wuxuu horumarkii shidaalkii laga jiriyay xariga in biyo waxa waa hore la soo dhaaf ninki waxa dig damba SRTV uma daawanin idiga nigu ka cararay nigu carada been baa loo sheegay buriyaha waa sax waa kulli waa qisa marxaladeeda wadata budul inta dabcan qofku saan ka warqabno dadku marxalad walba soo maraan geel laba jir soo wada mar baa leeyahay budul dhinaca jacaylka heesaad ku fiican tahay laakiin waliga jacayl ma kugu dhacay jacaylaad la tusato moojada iyo badina la gashay hay hay igama babaxo aan waxaan garan lahay in laygu soo bahalka laygu soo jaheeyay inaan anigu ba ka samaysanahay waqti igama dhamaado hay laakiin dadku waxay yiraahdaan qof hal qalbigu leeyahay la yiraahdaa qalbigayga wax ka qaad weey halkii qalbi u dhaafmiya war dhowr baan ma lagu jiraan aniga hay hay ma lagu jiraan marka jacaylku igama dhamaado hay igama dhamaado kama xishoodaba bal budalow dabcan xilleedii shukaansiga dhalinyarada marka leeyahay marxalad kala duwan baa la soo maraa marxaladii kugu la yaabka badnayd ee ninka shukaansiga la yiraahdo aad ku soo martay iyo dhibaatada aad kala kulantay haday jirto warniyo gabar baan warqad qoray hey bigada mobile ma jirin laga wada xiriir telefoon ma jirin warqad baan qoray wadnaan ku sawiray gantaalan ka dhax saaray marka gabadh saaxiibadooda u dhigtay ha dootana gabadhu warqad kale oo bay qortaa oo taadi xaggan baa la iska dhigay asbiin ku bay dhigtaa ha kale oo qortaa oo wajistaan ku yeesha ha waxaad qortay baan hayn anigoo isla markaa hawsha meel fiican oo waxba ku hagaagay ayaa laga yaabaa gabadha haddana waqti dambe aan saragno gabadhii afka ii taagso salaanta iga qaadeen warqadii faraha badnaa nuxurka iyo wixii aan soo qoray waxaan ila qaybsan nolosha kalgacaylka ila qabadii ku xariiqnay baa la bedelaya xiiba kuma arkay hay sheegan bal ugu qoraa magaraysa marka arintii dib baan u baaray waxaan ogaaday saaxiibadeed inay dhexda noo fadhido dadana nin saaxiibkay baan uga sheekay dadana wuxuu dib wax ku sheegaa wiligaa gabadh wax loogu midhiyo gabadh u sameeyay wiligaa u sameeyay ragga ku dhamasa waa ragga wax raggaan ugu bax ka qabaabaan rag iyo libaa mid wax lagu tarsado waa magaraysa
marka ninkaas cilmiga waan ka faa'iiday cilmiga wiish hadda gabdhuhuna iskuma jiraan ogo way kala fiican yihiin ya ka wajin ha amina markaaba ma yada gabdhuhu iskuma jiraan ya gabadh laguma dhiibo wax waa khalad ilaahay kala tooray magaranaysaa marka horta shukaansiga iyo hawlihiisi wuxuu dhib badnaa xilligan telefoonku jirin iyo xiriir ku jirin laakiin uu ka duwan yahay sidoo hore imika waaba wada online dadku dibariga waraaqadiisa ku qoray waraaqan kantaladii oo meesha ku sawiray waxa soo sameeyay istaa hadda maslada ma warqada ay ka tahay gawdi jaldiysan laakiin da jaxaasan oo hadii la arko waa la sabsanaya oo hawliha ka dambeeyay kamar wuxuu ku soo maraa ka dambeeyay gawdi marka taariikhun bay deeska ahayd hawa iska taariikh waa jiilka la xulo soo waa meel la soo maro nimba meel ay wadadaas kula dhamaataba waa wada dheer oo la soo maro weey marka saas ay haydo warqada waaga jidgoynta loo galay ayaa dhibkii ugu badnaa shukaansi iga soo gaaray oo ahaa gabadhiina salaanta baan kala qaadi weyn waagi tan waxay ku duray sheekada marka sheekadu waxay ku dambeysay fuqna cirka fuqna dhulka wala lagu dhaqaj awada la kala war ma waaranta xadiis mari maayo de kala dib dumarka lagu quful xadiis ma maro marka saas ku kala qaado waa sax aamin waxaad kugu laabka badnaa la kulantay oyoy dumarka ma la qiyaaba lama kulmaa wuxuu kugu laabka badnaa ay la hadda maskaxdaada ka bixin asleeda warniyo waxaas mar walba miiskaas u isaaray waan xasuustaa asleeda ina soo diyarsay tiraade ya fiican oo ku soo diyarsay la kulli waa madaxay wax badan ku jira laakiin hadda soo diyarsay dhilay runtii waan ka sheegayn la laakiin soo diyarsay badan hadda madaxa ma la dhaqaaji karo ya waa tahay budul dhinaca dhaantooyinka u noqono tadaantada xigteena nasteexa la yiraahdaa gabar reer soola oo reer laascanooda ayaan dhaantada ku amaanay meesha jin iyo jecel baa degan baan iyuna ay jiraan garan lahay ma mid waa talo war boqol wax bay dhex socdaa xagga farta ku galo hay marka gabadhaas waxa weeye nasteexa la yiraahdaa soo hal qabsaday gobolkii ay ku dhalatay iyo laascanooda ay magaaladeedii ana waxay way dhaantada way maraysaa waka laxankii erayada iyo waxoo dhan waa iska budul muusiguna waa saaxiibka hayno oo inta badan ba aniga dhaantay oo ciid mubaarak leen waliba hayno saalan ma hade laakiin budul inta badan dhaantooyinka ninkaas aatuma macallin weeye ma ka duwan yihiin dabcan hayno waa macallin heesaha kale ma ka duwan yihiin waa organized buuxa waa musician buuxa ma sha Allah wax noolo naflu de ku tumay hor hadaad hooy hay marka tayaa la isku dhaafay ogaanaysa marka inta badan 99 hayna go'aan musigeeto dhinaca dhaantada aad ma sha Allah laxankii eriyada waxasna aniga isku tubay bal markan waxoogaa dhexdaan ka jibin dhaantada bal markan dhaantada ayaan budul u kala baxay ya no lo ve
حرير نصباي يدا تجي شايبة نستحق